kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta 436 ee barnaamijka tubta nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. mahadsanid Faisa 7 Abriil adduunka oo dhan waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka adduunka. munaasabadani waa tallaabo ay bilowday qaramada midoobay oo ay hormuud ka tahay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. waxayna u dabaaldegtaa aasaaska hay'addan iyadoo bidhaamisa mawduuc gaar ah oo la xiriira caafimaadka sanad kasta si kor loogu qaado ficil caafimaad oo adduunku u qaado. aad iyo aad cabdicasiis maantana waxaan barnaamijka diiradda ku saari doonaa caafimaadka Soomaaliya iyo xaaladda ladnaanta dadka Soomaaliyeed iyadoo maanka lagu hayo halkudhigga sanadkan ee ah bilow caafimaad leh mustaqbal rajo leh. aad iyo aad diiradda ololahan waa sidii loo afmeeri lahaa dhimashada laga hortagi karo ee hooyada iyo dhallaanka iyadoo mudnaanta la siinayo ladnaanta iyo caafimaadka muddada dheer ee haweenka. cabdicasiis oo weliba arrintani si gaar ah ayay Soomaaliya muhiim ugu tahay. xafiiska istatiistikada qaranka Soomaaliya wuxuu qiyaasayaa in 100,000 ee haween ah ee uur yeesha 692 ka mid ah ay geeriyoodaan. taasina waa mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee adduunka. sidoo kale sahanka caafimaadka iyo bulshada Soomaaliya oo la sameeyay sanadkii 2020 wuxuu tilmaamayaa in 27% carruurta Soomaaliyeed ee da'doodu ka hooseyso 5 sano aysan si wanaagsan u korin sababo la xiriira nafaqo darro iyo cudurrada faafa sida kuwa neef-mareenka iyo shubanka, taasoo qayb weyn ka ah dhimashada dhallaanka. sidoo kale waxaa aad u soo badanaya xaaladaha caafimaadka dhimirka inkastoo aan wax laga qaban. iyadoo ay jiraan caqabadahan haddana qorshaha istiraatiijiyadda caafimaadka Soomaaliya ee 2022 ilaa 2026 wuxuu hiigsanayaa inuu abuuro nidaam caafimaad oo adkeysi leh iyo inuu baahiyo daryeelka guud ee caafimaad isla markaasna hagaajiyo helitaanka daryeel tayo leh iyadoo wax laga qabanayo baahiyaha muhiimka ah ee caafimaadka. nasiib wanaag dowladda Soomaaliya maamulada maxalliga ah iyo bahwadaagta caalamiga ah ayaa ka wada shaqaynaya howlgelinta xarumaha caafimaadka, tababarada shaqaalaha caafimaadka iyo abuurista siyaasado taageeraya xaqiijinta mustaqbal caafimaad oo yididiilo leh. haddaba si aan arrintan wax badan uga ogaano waxaan ku faraxsannahay inay marti noo yihiin Dr. Ronay van der Wert, wakiilka WHO ee Soomaaliya, iyo Cabdifataax Axmed Maxamed, agaasimaha siyaasadda iyo qorsheynta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Dr. Ronay, haddii aan adiga kugu bilaabo, maxay tahay muhiimadda maalinta caafimaadka adduunku ay u leedahay Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, cudurrada faafa iyo caafimaadka dhimirka? Every year on April 7, we observe World Health Day. sanad kasta 7 bisha Abriil waxaa la xusaa maalinta caalamiga ah ee caafimaadka. tani waa marka aan xusi karno markii la aasaasay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 1948. maalinta caafimaadka adduunka waxay noo tahay fursad aan ku milicsanayna caqabadaha caafimaadka ee taagan iyadoo halkudhigga sanadkan uu yahay mid muhiimad gaar ah leh. bilow caafimaad leh waa mustaqbal rajo leh. wuxuu diiradda saarayaa hagaajinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka taasoo aasaasi u ah badqabka shakhsiyaadka iyo bulshada. dalka Soomaaliya waxaan aragnay horumarka laga sameeyay yareynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka. sidaas oo ay tahayna weli Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu sarreeya dhimashada hooyada iyo dhallaanka. tani waa arrin walaac leh waayo sababaha dhaliya dhimashada hooyada iyo dhallaanka waa kuwo looga hortagi karo adeegyada daryeelka caafimaadka aasaasiga ah. Soomaaliya waxay wajahaysaa caqabado fara badan. marka maxay yihiin dhinacyada sida gaarka ah ay WHO wax uga qabato? The statistics in Somalia clearly show an urgent need for action. istatistikisyada ama xogta Soomaaliya waxay si cad u muujinaysaa baahida loo qabo in ficil la helo. waa inaan ka shaqeynaa hagaajinta kaabayaasha daryeelka caafimaadka gaar ahaan heerka koowaad ee bixinta adeegyada caafimaadka. waa inaan xaqiijinaa in adeegyada caafimaadka ee asaasiga ay noqdaan kuwo ay heli karaan hooyo kasta iyo ilmo kasto iyadoo aan la eegaynin halka ay ku sugan yihiin iyo xaaladda bulsho dhaqaalo. arrintani waxaan u sameynaynaa qaab taageeraya xirmada adeega caafimaadka ee asaasiga ah ee Soomaaliya. bishii May sanadkii 2024 markii uu socday shirweynaha caafimaadka adduunka ee 77 Soomaaliya waxay ballan qaaday yareynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka taas oo qayb ka ah xaqiijinta yoolalka horumarka waara. waan dhaqaaqaynaa anagoo hirgelinayna xirmada adeega caafimaad ee asaasiga
asaasiga ah islamarkaasna ballaarinayna helitaanka daryeelka guud ee caafimaadka. WHO ahaan anagoo taageerayna wasaaradda caafimaadka islamarkaasna kaashanayna UNICEF iyo UNFPA waxaan doonaynaa inaan xaqiijino daryeelka caafimaadka inuu noqdo mid xoogan oo u adkeysan kara dhinacyada loo baahan yahay in diiradda la saaro. Waxaa ugu horeeya maalgelinta shaqaalaha caafimaadka iyadoo loo marayo waxbarasho, tababar, hagitaan. Tani waxaa qayb ka ah tababarada la siinayo kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka iyo helitaanka dawo tayo leh. Sidoo kale dabcan waxaan la shaqeynaa qaybaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka maadaama aan ka mid nahay nidaamka gargaarka bini'aadanimada Soomaaliya. Sidoo kale aan nahay hay-adda hogaamisa kooxda caafimaadka. Waxaan si dhow ula shaqeynaa hay-adaha bini'aadanimada oo ay ku jiraan kuwa maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah. Waxaan xaqiijinaa in ay helaan xogtii iyo caddeyntii ugu dambeysay ee ku saabsan tusaale ahaan sida looga hortago cudur ama xaalad caafimaad oo gaar ah. Laakiin wax kasta kuma saabsana caafimaad oo keliya. Waxaa sidoo kale muhiim ah in gabdhuhu ay iskuulka sii joogaan oo ay wax bartaan. Gabdhaha iyo haweenku ay helaan aqoontay u baahan yihiin si ay u ilaaliyaan caafimaadkooda. to make sure that girls stay in school and that women and girls have the knowledge and resources to protect their health. ugu dambayn jarista deeqaha caalamiga ah iyo caqabado kale ayaa saameynaya adduunka oo dhan. haddaba sidee u aragtaa qaababka caqabadahani u saameynayaan Soomaaliya? maxayse yihiin tallaabooyinka ay WHO qaadayso si loo yareeyo saameynta caqabadahaasi? Funding cuts do indeed have severe impacts on healthcare and services in Somalia. Jaritaanka maalgelinta la siinayo Soomaaliya waxay saameyn halis ah ku yeelanaysaa daryeelka iyo adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya, gaar ahaan muddada uurka iyo markay umulayaan haweenku. Jaritaanka maalgelintu waxay sababeen in la xiro xarumo badan oo caafimaad, iyadoo sidoo kalena qalqalgeliyey howlaha soo iibinta daawooyinka nafta lagu badbaadiyo. WHO ahaan waxaan dib u eegis ku sameynaynaa arrimaha aan mudnaanta siinayno. Waxaan xoojinaynaa iskaashiyada aan leenahay. Waxaan raadinaynaa ilo kale oo maalgelineed. Yoolkeennu waa cad yahay. Waa inaan hooyo iyo ilmo midkoodna aan laga tegin. Annagoo adeegsanayna iskaashi, maalgelin iyo dadaal aan kala joogsi lahayn. Waxaan yareyn karnaa dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Waxaan xaqiijin karnaa mustaqbal caafimaad qaba oo aan dhammaanteen helno. And achieve a healthier future for all. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Dr. Roney van de Wert, wakiilka WHO Soomaaliya oo marti noogu ahayd barnaamijka Tubta Nabadda. dhagaysta haddii aad hadda nagu soo biirtay weli waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijka Tubta Nabadda, balse iminka aan u gudubno waraysi aan la yeelanay Cabdifataax Axmed Maxamed, agaasimaha siyaasadda iyo qorsheynta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. wuxuu ugu horreyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan xaaladda daryeelka caafimaadka Soomaaliya, gaar ahaan dumarka iyo caruurta. marka koowaad waxaan rabaa inaan kuu sheego Soomaaliya guud ahaan nidaamkeeda caafimaadku wuxuu ku jiraa soo kabasho. waayo burburkii kadib nidaamkeena caafimaadku wuxuu la kulmay caqabado kala duwan oo soo wajahay ugu horeyso burburka nidaamka caafimaadka guud ahaan, shaqaalihii oo dalka ka baxay, maaragta isku xirnaantii iyo wax ka qabashadii baahiyaha caafimaadka dalka oo hoos u dhacday. dadaal dheer kadib dalka waxaa ka hana qaaday hanaan caafimaad, si gaar ah hanaan caafimaad oo laba heer leh. heerka koowaad uu yahay heerka dhexe ee dowladda dhexe ee federaalka iyo heer dowlad goboleed. marka la eego waxyaabaha lagu cabiro maaragtay marxaladda marka uu taagan yahay nidaamka caafimaadka dalku, waxaa ugu horeeya boqolkiiba inta dadka dalka ku nool hesha adeeg caafimaad goor iyo goob kasta oo ay joogaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu maaragtay hooseeya xagga tirada guud ee boqolleyda dadka hela adeega caafimaadka, oo waxaa lagu qiyaasaa in keliya boqolkiiba 27 dadkeena Soomaaliyeed ay helaan adeeg caafimaad goor iyo goob kasta oo ay joogaan. waxaa lagu yiraahdaa afka Ingiriiska ama afka qalaad UHC indexka ama maaragtay caafimaadka loo dhan yahay. taas waxay ku tusinaysaa in inta badan dadkeena Soomaaliyeed aysan helin adeeg caafimaad goor iyo goob kasta oo ay joogaan, iyaga oo aysan soo wajahaynin maaragtay dhaqaale xumi. haweenka iyo caruurtu waxay ka mid yihiin bulshooyinka ugu nugul dadkeena Soomaaliyeed. Soomaaliya waxay ka mid tahay
ama ay tahayba waddanka labaad ee ay ugu sarreyso dhimashada hooyada uurka leh. qiyaastii waxaa la sheegaa in 692 boqolkii kun ee gabdhood ee Soomaaliyeed ee uur yeesha ay u dhintaan caqabado soo wajaha inta ay uurka leeyihiin ilaa inta ay ka dhalayaan. maxay yihiin tallaabooyinka ay qaadaysa dowladda Soomaaliya si loo hagaajiyo bixinta daryeelka caafimaadka ee aasaasiga ah, gaar ahaan hooyadii dhallaanka, cudurrada faafa iyo taageerada caafimaadka dhimirka? Waad mahadsan tahay. dowladda Soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin aad u fara badan runtii, laakiin haddii aan kaaga soo bilaabo inta hadda xukuumadda dan qaran ay jirto, waxyaabaha ugu horreeya la hagaajiyo waxaa kow ka ah horta bal in istaraatiijiyadda iyo hanaanka lagu wajahayo dhibaatooyinka ee haysta hanaanka caafimaadka Soomaaliya iyo adeeg bixinta aasaasiga ah in la hagaajiyo. oo hadda sidaad la socoto dowladdu waxay meel marisay qorshaha isbeddelka qaranka. qorshaha isbeddelka qarankuna wuxuu jiheeyey meesha ay tahay in wax laga qabto haddii la doonayo hanaanka caafimaadka Soomaaliya inuu awood yeesho. oo waxaa la isku raacay in maadaama aysan suurtagal ahayn in 5 sano gudaheed wax walba lagu qabto, in la eego waxyaabaha haddii wax laga qabto bedeli kara marxaladda nidaamka caafimaadka Soomaaliya oo geyn kara meesha hadda uu joogo meel ka wanaagsan. haddaan tusaalayaal kusoo qaato adeega caafimaadka aasaasiga ah oo runtii 75% bulshadana Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin una baahan yihiin in loo xoojiyo, ayaa qorshaha isbeddelka qaranku wuxuu u sameeyey hawl qabadyo iyo hawl beegyo lagula soconayo laguna kobcinayo awoodda. waxaa la ogaaday in xarumaha hadda aan haysanno ee caafimaadka aasaasiga ka shaqeeya ay u baahan yihiin in la siiyo maaragtay taakulayn dhinaca saadka oo joogto ah, in loo sameeyo waxa la yidhaahdo dib u dayactir, qalabayn iyo in la siiyo adeega biyaha iyo korontada, shaqaale ku filanna la geeyo inay wax ka qabanayso caafimaadka guud ahaan dalkeena Soomaaliyeed. waxaa kaloo la ogaaday in adeega caafimaadka gaarka loo leeyahay iyo adeega caafimaadka dowliga ah haddii ay iskaashadaan in la kicin karo isbitaaladii heer gobol ee dhammaan gobollada Soomaaliyeed, taasina ay yaraynayso dadka Soomaaliyeed ee dibadda u aada adeega caafimaadka, taasoo keeni karta in dakhli badan uu u baahdo dadka Soomaaliyeed. ugu dambeyn, taageero noocee ah ayay dowladda Soomaaliya uga baahan tahay bahwadaagta maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah si loo hagaajiyo nidaamka daryeelka caafimaadka ee dalka Soomaaliya? horta marka koowaad waxaan rabaa dadkeena Soomaaliyeed iyo dowladdeena Soomaaliyeed inay ku baraarugaan innagaa iskale dalkeena Soomaaliya, innagaa iskale caafimaadka bulshadeenna. hanaanka caafimaadka Soomaaliyeedna wuxuu u yaallaa in la dhiso ummadda Soomaaliyeed, haddii uu yahay hanaanka maaragtay gaarka loo leeyahay iyo haddii uu yahay kan dowliga intaba. marka taakulada koowaad horta waxaan uga baahannahay nafteenna, dowladdeenna iyo shacabkeena Soomaaliyeed. haddii dowladda iyo bahda ganacsatada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay iskarab istaagaan oo iskaashadaan, waxaa yaraanaysa ku tiirsanaanteenna aan ku tiirsanaanayno ajnabiga. waad aragteen isbeddelka ka dhacay adduunka oo maaragtay dowladda Maraykanka ee cusub ee hadda jirta ay la timid, kaasoo saameyn xooggan ku yeeshay waddan walba oo isku halleeya xoolo ajnabi. marka anu marka koowaad kuma baaqayo kumana talinayo inaan ku tiirsanaano maaragtay xoolo ajnabi, laakiin waxaan ka codsanaynaa dadka nala shaqeeya inay taageeraan dowladda Soomaaliyeed istaraatiijiyadda u taalla ee ay tahay inay nidaamka caafimaadka ah nagala shaqeeyaan. istaraatiijiyaddaasoo hadda hordhac uu yahay qorshaha isbeddelka qaranka. qorshaha isbeddelka qaranka waa la yaqaanaa miisaaniyadda ku baxaysa iyo halka uu rabo dalka inuu gaarsiiyo. marka arrinta keliya raba inaan ka codsado deeq-bixiyaasha iyo hay-adaha waxa weeyaan inay ku shaqeeyaan hanaanka dowladdu ay u dejisay nidaamka caafimaadka. xirmada adeega caafimaadka ee afka qalaad lagu yirahdo EPHS-kuna ay tahay hanaanka dowladda Soomaaliyeed ay u diyaarisay dadka Soomaaliyeed in caafimaadkooda wax lagaga qabto. cid walba oo doonaysa Soomaaliya xarun caafimaad inay ka furtana ay tahay siyaasadda adeeg bixinta caafimaadka qaranka inay ku shaqeyso. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa Cabdifataax Axmed Maxamed, agaasimaha siyaasadda iyo qorsheynta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya.
wuxuu marti noogu ahaa barnaamijka tubta nabadda. iminkana dhegeystayaal kusoo dhowaada gabay ku saabsan caafimaadka dhimirka waxaa inoo marinaya Liibaan Cabdi Warsame. cudurrada ku dhaca maanka ee dhimirka naafeeya dhulkayaga waxaa laga helaa 12 nuuce waana loo dhintaa goorta aan dhaymo loo helin sida geel dhukaan qaba dadkan horay u dhaanteeyey inta maanka loo dhayo ileen waa dhibanayaale dhakhtarrada dareemaha dhintiya dhimirka daaweeya waa in loo dhoweeyaa sidani waa dhugxumo weyne dadka dhimirku naafoobay ee dhooban sabadkeenna marna laguma dheele intii dhiilo lagu beeray marka uu dhirfo meel fog uu dhagax ka soo tuuro dabadeedna uu dhowr daqroo dhiig ka yara daadsho inta qoobka dhaad looga xiro geed silsilad dheer leh misna dabarka lagu dhuujiyaa waa dhigxumo weyne dhibarahan la daayacay masana dhabarka loo jeedshay mar haddaan qalbiga laga dhayeen dhaawacyada gaaray dhaqamada gurican ee dulmiga dhiirigelinaya xarigguna u dheeryahay dadkaas waa in laga dhaafo. waa hagaag dhegeystayaal gabaygaasi ku saabsanaa caafimaadka dhimirka uu inoo marinayay Liibaan Cabdi Warsame wuxuu ugu dambeeyey barnaamijkeennii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen Cabdicasiis Maxamed Diiriye iyo anigoo ah Faa'ise Cabdi Warsame. fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaargaroodaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.